صاحب عيال أصحابي خد كيبا وحوية هاد بول علوسي هاي وبرنامج كعرقلات يجي نقضي كلبا ويبقى إياه خد كآل علوس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سود هذا أصحابي خد كيجي إياه كلبا وآدي آل علوس waxaan rabaa ama ay muhiimadda aan u soo galay ay tahay waxaan u malaynayaa saaka qadkiiba midda xabashiya la u dhiibay baan u malaynayaa ama orona ma garanayo maxaa kasi ah waxaan u malaynayaa qadkiiba saaka mucaaradad baa gashay oo kolba uu iga go'ayaaye barnaamijka aan rabay inaan ka hadlay waxa weeyaan oromada oo af soomaaliga u taqaana say soomaalidu u taqaano وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سود هذا أيها وحال السمية إن لو سوق يبرع بالشدة سيدا فيسبوك وكله إن اللي يدبانك الله يجوا إسكت جايات الصومالية يجوا على قبيل هبل بان هاي بالهبل بان كسود شيدا ريد هبل الله إسكال عليه ريد هبل ضل كقاضنا يان وحنو شيءنا عطانا ناي صومالي إن نسكمتنا هاي إن ناي جبر يويل إن ناي تد سود الله إن ناي تد سود يقانا إن قف كستل يقانا أنا نجن اللي جودي حدومن كرين haddii aad af Soomaaliga barateen haddii aad af Xabashiga barateen haddaad kolba sijeed qaadanaysaan Oromoy annagu waxaan nahay hal baanu nahay Soomaali baan leeyahay waxaan leenahay sinjeed midaan leenahay waxaan leenahay luqad midaan leenahay dhaqan midaan leenahay oo midaysan sidii aanu doono annagu ma yeeli karno dhammaanna waanu soo garanaynaa waxa weeye dadku ma Oromo sida Oromada kale Soomaalidu ma aha dad waxa weeye iswada yaqaan weeye oo waxa weeye isku diin ah oo isku dhaqan ah oo wax kasta wadaaga weeyaan hal meelana maartay ku wada nool iskana wada warhaya hadduu degan yahay qofka Soomaaligi hadduu Kenya yahay Soomaalida Kenya degta hadduu yahay Soomaalida ogaadeenaya DDS Soomaali galbeed waa la yaqaanaa Djibouti hadduu oo maartay ka soo jeedo waa la garanayaa markaaba haddii uu koonfur joogo waa la garanayaa waqooyi hadduu joogo waa la garanayaa wareerina ha ku wareerina baan idin leeyahay nalagama dhex shaqayn karo waxaa kale oon runtii ku faraxsanahay berigii hore jamhadda gobnadoonka ah ee ka dagaalanta gobolkaas iyo xubnaheeda waxaa loo soo adeegsan jiray jawaasiis Soomaali ah la sinjeed ah waxa weeye la socota qaabkeeda oo dhan oo qurbaha loo soo diri jiray oo baraha bulshada ka hadli jirtay iyaga oo iska dhigaya inay yihiin dad jamhada calankooda wata waxa weeye gumaysiguna u soo dhiibi jiray laakiin waxaan ku faraxsanahay runtii inay Soomaalida hadda midowday isku mid inay noqdeen hal meel inay uga soo wada jeedaan markii la waayay meel laga soo galo waxa weeye shacabkan gobnadoonka oo siyaasadooda lagu carqaladeeyo iyo maartay kacdoonka shacabka lagu burburiyo ama la iskaga horkeeno in loo soo adeegsaday dad af Soomaaliga bartay ama Xabashi aado ama Oromo aado oo iska dhigay inay yihiin qabiilada Soomaaliyeed dadkaas maxay higsanayaan oo nidaamka ay wataan maxay tahay inay iska dhigaan Soomaali iyaga oo yaqaana sidana meesha Soomaalida laga soo galaa ama laga geli kara wax weeyaan waa qaab qabiil oo waxa loo yahay Soomaalida inay tahay wax qabiilka maartay u jilicsan meesha kaliya boogtay waa qabiil oo runtii jeclaan lahaa Soomaalidu inay halka iyada ay iska daayaan oo iska maartay iska ilaawaan oo u midoobaan hadafkooda iyo midnimadooda runtii taas ay meel ku gaarayaan taas ay karaamo iyo sharaf ku yeelanayaan taas ay cid walba kaga adkaanayaan Soomaalidu runtii marka inay Soomaalidu mar walba midnimadooda ilaashadaan inaan la dhex gelin inay isku dayaan haddii la weydiiyo qabiilkooda inayna u sheegin oo yiraahdaan maxaa ka galay de Soomaali baan Soomaali waa Soomaali annagu haddaan Soomaali nahay de hore Oromo noo sheegtaan Oromo waa Oromo halka uma dhaafno Xabashi weeye waxa weeye kolkana Ethiopian bay nooga yihiin haddii aan Xabashi iyo Oromo kala sheegno baan dadaalay Soomaalidu intooda badan nooma kala qaadaanba hase yeeshee Soomaalida waxaa la ogaaday qabiil jifa iyo u barteen halkaana inay noqotay halka kaliya ee laga dhex galo Soomaalida ee laga carqaladeeyo وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا سود وين يا دمانتين وحال الله يكون سود وهذا برنامج كان أرنتي برنامج حساسية إن لقاها الله أي مدن تاي رنتي
shaarkan Soomaalida ee la soo xidhanayo ay oromadu soo xidhanayso ay soo xidhanayaan dadkan xabashida ah ee Soomaaliga bartay annaga isbarnay baan la oran karaa runtii oo oromo iyo axmaaro iyo Ethiopian barnay maxay ahayd qabiilooyinkeena innagaas yaa maartay saa isu galay halkii aynu barnay un baan leenaga aadayaa waxay Soomaalidu tiraahdaa ciirtaada dhame baa caydaada yaqaana hadduu qofku gurigaaga joogo oo meel walba u ogolaato inuu galo runtii sira badan buu ka hayaa uu ku baranaya uu ku dhaxgalayaa Soomaali baa u ogolaatay inay say doonaan u dhax qaadaan inay meel walba ay ku sii daayaan inay dhaqanka Soomaaliyeed la dagaalamaan waa nasiib darran leeyahay halka ay Soomaali ka degilaan waa halkaas oo Soomaali waa la bartay runtii way baratay baraha in loo qaybiyay bay keeneen inay baraha bulshada ku yaaca oo ka hadla oo aad Soomaali baan nahay qabiil hebel baanu nahay akishaanu nahay gari baanu nahay maxay baanu nahay dir baanu nahay wariyana kala baray annaga oromo inayna ahayn waan ognahay yana kala baray Soomaali baanu nahay oromo iyaguna weeyaan waxa weeyaan dhaqankooda ha haystaan iyagu ha isbartaan diinta annagana baranayaan waanu ognahay waan dareensanahay waxay anagu dad garanayaan nahay sirta gumaysiga dad yaqaanaan nahay khiyaanada iyo tabcada gumaysiga dad bartay baan nahay oo muddo 30 sano soo dagaalamayay qarniyaal ka horreeyay dagaal ku soo jiray jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya hadda ka dagaalantay gobolkaas runtii ayaa la oran karaa iyada kaliya taqaana tabcooyinka gumaysiga iyada kaliya la jaan qaadi karta laakiin shacabka Soomaaliyeed oo shacab iska hurda inay dareensanayn tabcooyinka gumaysiga qaabka uu la dhaqmo shacabka Soomaaliyeed qaabka uu ku kala furfurayo qaabka midnimada uu la dagaalamayo runtii wax badan marka waxaan leeyahay ha u dayma la'aanina midnimo Soomaali waa Soomaali ha jooga NFT ha jooga ogaadeenaya ha jooga Djibouti ha jooga koonfur ha jooga waqooyi ha jooga Soomaali waa Soomaali wadanka Soomaaliya meel kasta aad Soomaali baa iska leh iyada mudan inay ka hadasho khayraadkeeda Soomaali baa iska leh kama hadli karta cid kale waxa weeye inay damanaashaha la iska daayo in la kaco shacabkan in la baraarujiyo muhiim weeye Soomaaliyeed waa la inagu soo duulay